arrimo waaweyn baan hor fadhiya dalku uu qaybsan yahay siduu qaybsanyana maaha si siyaasadeed si qabyaalad uu qaybsan yahay doorashaduna qabyaalad baa lagu qaybiyey reeraha lagu qaybiyey dee mar haddee one vote tahay oo tribal line lagu qaybiyey waa inaan aqbalaa insha allah waxay xiran doonta maalin lagu codeyn doono yaa hogaamin kara wadanka yaa hore u marin kara yaa ilaahay ka baqaya yaa ummadda midayn kara laakiin hadda waqiyan taagan waa qabyaalad marka waxaan si gaar u hambalyaynayaa beesheeda oo codeysay cid kale oo codeysay ma jirto beesheeda weli bar la fadhataystay oo xooga la saaray ayaa i codeysay muusena waa sheegaantii cirana reerkoodii iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii ayaa codeeyey bahashaasi qabyaalad loo kala saftay hadda markaa loo baahan dadka la kabo la mideeyo muuse uu noqdo nin Soomaaliland ku codeeyay ku aan codeyn ba mideeyay uu noqdo arrimaha hortaagan ko waxayna gudaheena hagaajinaa weeye daldalaaca ku dhacay qabyaaladeed inuu kaba weeye especially beesha reer Sheekh Saxaaq ay ku kala dhacay ka bacdi wada hadaladii khaatumo iyo heshiiskii waxa weeye inuu hormariyo arrinta Buuhoodle iska soo afjarno ayaa weeye beriga Sanaag oo idana waqtigu naga dhacay oo hadiyadana in la fariisto oo idana la isdhageysto in idana la bilaabo weeye in gudaha sidii dadka loo mideyn lahaa xoogga la saaro constitution waxa weeye in sidan ku heshiinay la furaa weeye dastuurka baarlamaanka dowladaha hoose guurtooda intuba sharci kuma fadhido bal constitution la baahayn laano dowladda hadda inaga tagtay constitution way jabisay magaas anaga iska xishoonay waxaad in magaas waxyaalo loo duqaadano dalka aan oo khatar geliyay ayaa ka socday oo la jabiyay in la review gareeyo weeye sida ugu dhaqsaha badan la qabto doorashada wakiilada iyo magaas dowladda hoose waxa kale oo hor taagan waxay wada hadalay Soomaaliya waxa weeye in istirtar cusub la geliyo in Soomaaliya waxaan jecelahay in annagu hadda ma aragno Soomaaliya inay jirto waa wada qaybsan qabaa'il u qaybsan madaxweyneyaal kala jiraan laakiin adduunkuna inaan iyagana u xidhnaanine inaan adduunka kalena aynu si baarala ictiraafkeena u raadsanaa weeye la sameeyaa guddi adag oo wada hadal Soomaaliland iyo Soomaaliya ictiraafkana dhinac kale ka doontaa loo baahan yahay wax la baahan yahay in wadankan lagu soo celiyo kala dambeynta sharciga hadda ma shaqeeyo waa in la kala xadeeyaa siyaasiyiinta iyo cuqaasha iyo salaadiinta la xadeeyaa waa in madaxtooyada laga joojiyaa salaadiinta iska soo dhex taaganeen kaa qaadsa waqtiga kaa qaadsa cuqaashan waa in asxaabta la empower gareeyaa la institutionalize gareeyaa waa inuu ka baxnaa magaranaysa qabaa'ilka entity abuurnaa nationhood sameynaa waa inuu ciidamadeena xoojinaa Soomaaliya wax kasta ka suurta gasha oo ka loo fasaxay Turkiga baa jooga waa inaynu ciidanka inuu wax kasta u hurnaa ciidan mobile sameysana modern sameysana waa in booliiskeena la xoojiyaa waa in shaqooyin la abuuraa la sameeyaa magaranaysa jawi adduunku magaranaysa wax inuu gashado waa in la soo saaro sharciga dhulka waa la boobay dowladda dhul ma leh sharciga Soomaaliya markan ku jirnay shaqeyn jireen waa la keenaa dhulka iyo khayraadka ummadda leh lama kala sheegan karo wax hawl badan baa joogta hawlaha hadduu anaga nala qaato madaxweynaha la qaatay waan la shaqeynaa gacmahaan u qabsanaynaa in wadankan hore u marno dhaqaale keeno hore uma keeno shaqaale abuurno dhalinyarteena 170 waa less than 10 years waxay baahan mustaqbal musuqmaasuqa la dagaalamo guddi monitoring la sameeyo barnaamijkeygii baan u geynay insha Allah taala inuu wixii wanaagsanaa isku mid naga qaato ayaan jecelahay diyaar waxaan in la shaqeyno insha Allah taala aan joojino magaranaysa murankii gudaheena isagana ku xidhantay hadduu sidii uu soo saaro sidii sharcigii magaranaysa bisadaha the law of cats waxa weeye bisadu sharciga bisada wasada tahesha kaliya cunta intay inta isku qabsato sidii administration inaga tago kale maca salaameynayno
hadduu tayo inuu ka beedhaa weeye in dad wanaagsan isku xeeraa weeye inkastoo dad aniga mushkiladii igu weyneyd haddaan soo bixi lahaa waxay ahayd cid capacity leh oo reer somaliland oo wax u dhiyooda maan garteen taasaa igu adkeed markaa dad la socdo technocrats la keeno in bahasha ay noqoto inclusive government laga wada muuqdo beelaha dhexe waqtigan ay dib u noqdaan beelihi hareeraha saamigoodii la siiyo power sharing fiican la siiyo hawl badan baa inoo taala insha allahu tacaala hagaag ugu dambeyntii su-aasha ugu dambeysaan ku weydiinay waxa weeyaan mudane guddoomiye deegaano kamid ah somaliland xilligan waxaa ka soconaya qaarkood sida burco kale banaanbax shacbigu ay muujinayaan dareen ahaan sidaad adigu u qaabishay natiijada waxaa jira qaar qaabilaadaas iyaguna dhankooda si kale u qaabilay maxay tahay fariintaad u diraysaa shacbigaasi qaarkood hadda ay taagan yihiin jidadka amba burca noqota ama magaalooyin kale waxa weeye de anagu shacbiga kulma xaq maaha inaan shacbigan ilaah noo codeeya haddaanu dhacdana noo dagaalama anaa nooguma jirin magaranaysaa sheekada ajendaa nooguma jirin waxaan leenahay kursi qolf baa fadhiisan lahaa markaad ordaysaa waad usoo diyaar garoodaa inaad dhacdida heshid baa weeye waxa ka weyn magaranaysaa guusha somaliland ba guusha shaqsiga ka weyn somaliland way guuleysatay cadowgeeni maanta naqaskaa ku noqday waxaan dadka isdejiya waa dhalinyaro maanta qabyaalad ku magaranaysa ku mudaharaadaya in reere loo magaranaysaa loo foteeyay haddaad diidid xukunka muuse bixiin madaxweyne ku noqdo dee farmaajo xasan sheekh baa ku noqon doona inaad ka kula dhashay ku isgaranaysa haddaad diidid ya waxa shisheeye ku xukumi doona wixii xukunkiisina waad garanaysaa waan leenahay reer ceergaan waxaan leeyahay ceergaan idinkaa u baahan taageere idinkaa reer dhulfidsi ku socdaayo puntland la baxay jaar yihiin haysfaquuqina rabshada daaya dalka la ilaaliyo somaliland waa hal sakaaro lakama qaado kii maalinba qabtay waanu ilaahay baa la xisaabtay anu waan la xisaabtami doonaa insha allahu tacaala marka waa la is aaminaa baan jeclaa